waxa munaasib ah inaan isdul taagno fawaa'idda uu leeyahay shajarata sidr geedka gobka ah iyo fawaa'idda uu leeyahay ayaynu in yar isdul taagaynaa geedka gobka ahi wax kale kuma tilmaami karo geedka gobka ahi waa hadiya min hadiyaati illaahi tabaaraka wa tacaala waa hadiyad ka mid ah hadiyadaha ilaahay aadamaha uu soo raaciyey markuu arladan keenayay geedaha uu ilaahay soo raaciyey ee manfacada badan ayuu geedka gobkii ka mid yahay geedka gobka ahi ilaa iyo 40 nooc oo gob abaa adduunyadan ka baxa laba geed oo isu dhow oo midhahoodu haddana aanay dhadhanka isku mid ahayn baad arkaysaa maa min shajara oo gob ah oo dhadhankeedu geedka kale la dhadhan yahay geed waliba geedka kale dhadhankiisa uu ka duwan yahay waa ilaa iyo waxay yidhaahdaan 40 sinfi oo gob ah baa arladan guudkeeda ka baxa ku darsoo caalamka oo dhan kama baxo geedkan gobka ahi caalamka dhammaantii lagama helo buqcaddan aynu joognaa waa buqcadaha ay ugu badan yahay geedka gobka ah haddana ma intifaacsano geedka gobka ahi qur-aanka makaanad buu ku leeyahay xusna wuu ku leeyahay ilaahayna ashjaarta uu tilmaamay ee qur-aanka uu ku tilmaamay ayuu ka mid yahay ilaa iyo 4 meelood ayaa qur-aanka kariimka ah lagu xusay haadihi shajara waa shajaro qaniimo ah oo haddii alla ka dhigo ummadda ilaahay uu wadeeca dhigay ilaahay uu fadli badan iyo nicmo badan oo noloshooda uu ka awdaya ilaahay uu siiyey ilaahay qur-aankiisa suurat الnajmi 2 meelood buu qur-aanka kaga sheegay wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi id yaksha sidrata maa yaksha iyo cinda sidrati اlmuntaha cindaha jannat اlma'wa waa geedka webiyada jannadu ay gudihiisa ka soo baxaan waa geedka 4 webiya adduunyada ugu qiimo badan rasuulku uu sheegay inay ka soo farcamaan waa geedka ilaahay u doortay inuu laba gardaya noqdo oo cilmiga adduunyada iyo cilmiga ladunniga ah buu kala soocaa waa geedka uu ku intihooda aqoonta makhluuq marka laga reebo xabiibkeenna moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh markii samaawaadka lagu casuumay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo uu horgale u ahaa sayidina jibriil calayhi salaatu wasalaam halkuu dhaafi kari waayey malakul jibriil uu yidhi halkan ma dhaafi kara anigu cinda shajarati sidri bay ahayd maalinta nebiga la soo dhoweynaya calayhi salaatu wasalaam ee malaa'igta oo dhan heeganka la geliyey geedkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala shacni aanu lahaan jiranoo hore ayuu ilaahay hubiyey id yaksha sidrata maa yaksha waa geed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameeyey horta weeyaan waa geedka agtiisa lagu soo dhoweeyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa geedka malakul jibriil uu dhaafi kari waaye geedka sidrat almuntaha waxaa loogu bixiyey cilmiga makhluuqaadka halkaa ku intihooda wixii ka dambeeya cilmi ilaahiya oo keliya ayaa halkaa ka sii farcama waa yahay mar saddexaad ilaahay qur-aankiisu ku sheegay suuratu saba wuxuu ilaahay yidhi wabadalnaahum bijannatayhim jannatayni dawaatay ukulin khamtin wa ahlin wa shayin min sidrin qaliil mar afraadna ilaahay suuratu lwaaqica wuxuu yidhi wa asxaabu lyamiini maa asxaabu lyamiin fii sidrin makhduutin nin acraabi ah ayaa rasuulka u yimid oo wuxuu yidhi nebi allow geed qofkiisa dhiba ayuu haddana ilaahay jannada ku sheegay markaasuu yidhi muxuu yahay geedku markaasuu yidhi waa sidriga markaasuu yidhi halkuu dhib ka leeyahay qodax buu leeyahay xanuun badan markaasuu yidhi qur'aan af carabiga miyaad fahmaynin sawka ilaahay makhduudin uu yidhi kelimatu makhduud
إن سؤاشا نبي محمد لو يديني إلهي وأوغا مركاسو إلهي وحو سير راعي سدر مخضود وجد جبأة أو قدح دي لغا ريبي مخضود وحال لغا ريبي قدح ماله geedka jannadu marka geedka goobka ahi waa geedaha jannadu kamid yahay inagu ummad ahaan manaafic badan buu inoo lahaan jiray manaafic badan ayuu inoo lahaan jiray waa geedaha kale oo wuxuu kaga duwan yahay gu iyo jilaal marna ma qalalo waa geed cagaaran gu iyo dayrba jilaal iyo xagaa ma kala laha geedkan waa geed marka dhirtu ay caleenta daadiso ee ay midhaha joojiso waqtigaas uu isagu hawraa waqtigaas uu midhaya waqtiga jilaalka dhirta kale oo dhani midho ma bixiso illa sidr geedka sidriga kaliya ayaa midhaha bixiya oo dadka reemiyiga ay ku eertaan waa dhirta Soomaalidu ay tiraa waa birimageydada dhirtaba gobolaan la jirin iyo ogow lama garaacaan inuu jiro marka geedkan gobka ah manaafic fara badan ayuu bini aadmiga u leeyahay waxaynu isticmaali jiray waynu ka kibirnay waxaynu inagu lahayn baynu ka kibirnay waxa laga dhigan jiray saabuun qasil buu ahaan jiray timaha waa lagu dhoobi jiray toxobta iyo wixii la mid ah madaxa marka lagu dhoobo caleentiisa qofku wuxuu ka heli jiray deganaasho muhaddi weeye halkan kiniinka muhaddiaadka laga isticmaalayo bedelkeeda haddii caleenta gobka inta la tumo madaxa lagu dhoobo qofku nasiinuu ka helayaa qofkii hurdo waayeen hurdu ka helayaa qasil baa la odhan jiray geedka qasilka ah waxa la inoo sharciyay alxayaa walamwaat in loogu maydho dadka nooli way ku maydhan jireen nabiyullaahi muxamedna waa ku maydhan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaanu ina faray maytaadeenna in lagu maydho xadiid saxiix ah oo bukhaari iyo muslimba ay soo wariyeen wuxuu nebigu odhan jiray ghasiluuhu bimaa'in wa sidrin ku maydha biyo iyo caleengobeed ku maydha maydkiina biyo iyo caleengobeed waxaad in badan aad arkaysaa culimada qaarkood ama dadka qaarkood oo fatwoonaya in booskaa ay saabuuntu bedeli karto ma bedeli karto sir nebi baa ku jirta amar nebina wuu ku jiraa markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam maadooyin fara badan oo lagu maydhan karo oo uskaga la iskaga zuulin karabaa waqtigiisiiba jiray calayhi salaatu wasalaam sabankii rasuulkeenna maadooyin fara badan oo saabuuni ah oo lagu maydhan karo way yaaleen laakiin nebigu wuxuu u dooray maydkeenna in lagu maydho sidriga waxa ku jira waxa weeyaan qofka lagu maydho sidrigu dhaqso uma uro haddii sidriga lagu maydho ruuxa jidhkiisu dhaqso uma uro sababta oo ah uma qurman ka wada sababtoo ah waxa weeyaan caleentan gobka waxaa ku jira maadooyin la dagaalama bakteeriyada waana qaboojisaa jidhka bini aadmiga qabow bay siisaa manaafic fara badan bay leedahay mana bedeli karto saabuuntu maydka in lagu maydho xataa haddii qofku uu dee waayo waxaa la yidhaha dayax haddii la waayo xidigaha lagu gudaa biyo haddii la waayona ciiddaaba lagu gebagabaystaay meel caleen gobeed laga heli karo iyo sidri in maydkii la yidhaahdo sidriga iska daayo caleen maxaan ku idhaahdaa ku maydha saabuun wax sharciga hooy sheegaya ma jiro xikmad rasuul baa ku jirta oo aanu weli bini aadmiga aqoontiisu gaadhin marka ruuxu haddii uu dhinto iyo hadduu nool yahayba waa lagu maydhaa geedka gobka ah waa geedaha ugu hadhka qabowle geedaha ugu hadhka qabowle buu ka mid yahay waana geedaha meelaha maxaan ku idhaha lama degaanada ah haddii lagu beero hor joogsan kara maxaan ku idhaha carradu inay suusho
geedka gobka ah waxa weeyaan geedaha ugu horeeya ee waagii hore aynu ka samaysan jiray madagta azand baa la yidhaahdaa zandi ayaa af carabiga lagu yidhaahdaa madag ayaynu af soomaaliga ku odhan jiray waabaa iman doonta ijiinadan iyo waxaan iswadaa ay istaagi doonaan oo qolo waliba ay u noqon doonto asalkeedii ummad waliba waxay hiddo u lahayd ay isticmaali doonto caalamka maanta aynu ku noolahay ummad dhaqankeedii sii daysay ma jirto innaga mooyaane irbad baa ugu yaroo dibadda laynooga keenaa findhicil baa ugu yaroo dibaddaynu ka keensannaa geedaheennina oo wada qodax berri ka maalin haddii adduunyadani istaagto warshadaheedu haddaynaan ubadkeenna aynaan taariikh uga teginoo war haddii taasi qabsato taasaa looga guuri karaa hadday taasu timaaddo taasaa la yeeli karaa haddaan looga tegin hadhow waxay noqonaysaa uun ummad iyadoo halkaa joogta uun taariikhdeeda la waayo geedka gobka ahi wuxuu ka mid yahay geedaha madagta laga dhaliyo alladii jacala lakum min ashajari alakhdari naaran faidaa antum minhu tuuqidu geedka madagta la yidhaha geedaha ugu fiican isagoo qoyan buu bixiyaa dabka geedka gobka lagu yidhaahdaa waa geed aada u caqiibo badan waa geed dawaa'iya waa geed ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan kugu idhi ilaahay subxaanahu wa tacaala manaafic fara badan aadamaha u soo raaciyey waa hadiya min allah waa hadiyad ilaahay wuxuu leeyihiin markii la baadhay geedka gobka ah midhihiisa iyo caleentiisaba isticmaalkeeda waxaa laga helaa maadooyin kansarka ka hortaga maadooyin kansarka ka hortaga caleenta gobka intoo la soo gurto baa sonkor yar lagu darsadaa dabadeedna waxaa la gelinayaa ijiinkan yare sharaabka lagu walaaqo sida sharaabkaa loo cabbaa wax side effectsna ma leh ma fahamta maadooyinka ku jira midhihiisa iyo caleentiisa maadooyin baa ku jira ka hortegi kara kansarka hadduu yahay ka naasaha ku dhaca hadduu yahay ka maqaarka ku dhaca hadduu yahay ka maskaxda ku dhaca hadduu yahay ka caloosha ku dhaca kansarrada wuu ka hortegi karaa waxa kaloo inta badan saxaa shaqada calooshaada haddii maalan dheefshiidkeedu xumaado ama aada waxyaalo maxaa naqas badan ku aragto ama siyaabo badan ay kuu ciladayso midhaha gobka iyo caleentiisa haddaad shiidato labaduba way ku anfacayaan gobka waxay xoojiyaan lafaha dhismaha lafaha calciumta ayay aada iyo aada u caawiyaan marka gobku wuxuu dhisaa lafaha bini aadmiga laakiin inagu ma isticmaalno ninka harabiyala jooga ee ooman baan ahay bay yidhaahdaan marka waynu ka qatanay inagu dhib mooye dheef inaguma hayo xataa midhihiisa meelaha hadduu daadsan yahay cidiba quud ma moodo waxau kaloo aada iyo aada u caawiyaa miisaanka qofka isticmaala gobka midhihiisa ama caleentiisa miisaanku kuma kordho takhfiif almiisaan buu kuu samaynayaa geedka gobka ahi caleentiisa iyo midhihiisu jidhkeennu marka uu sameeyo dheefshiidka maadooyin sunaa ka dhasha oo kaarboonkuba dee ka mid yahay sumo badan baa ka dhasha oo kaadidan aynu soo saarayno sun badan baa la socota dadka qaarkood kaadidaa ku hadhadha dabadeedna dhiigga inay raacdu sumoobaa laga yaabaa siyaabo badan baa dhiigga bini aadmiga suni u raacdaa geedka gobkii wuxuu ka mid yahay maadooyinka maydhi kara dhiiggaaga dhiigguu sifeeyaa geedka gobkii iyo cunitaankiisu waxa uu difaacaa bay yidhaahdaan cunitaanka geedka gobka midhihiisa ama caleentiisoo sharaab laga dhigtaa waxay anfacdaa asaasaqa qofka inaanu ku soo degdegin talafu dimaaq maskaxdu inay dhaqso u asaasaqdo uu ka ilaaliyaa waa caleenta gobka ama midhaha gobka qofku dhaqso uma asaasaqo waxaa kaloo la yidhaahdaa ruuxu hadduu xumadaysan yahay
وعلينتا قبك أنت لوش إذا شراب لو قدقو وحمد شبيه وحكلي فائدة سا علينتا قبكو أما مريهيسو dadka xiiqda qaba intay caleentooda ay qooyaan haday laabta ku dhoobaan ama ay caleentiisa ay sharaab ka dhigtaan ama midhiisa xiiqda uu baabi'iyaa sababtoo ah xiiqdu wax kala ma ahan waa balqan fara badan oo sanbabada ka buuxsamay sabab doontaan haba keentee laakiin waxa weeye marka geedka gobkii balqamka uu khafiifiya sida fooxeeno kale fooxuna balqamka uu khafiifiya oo ka hadli doona fooxa insha Allah fawaidis gobku balqamka uu nuugaa marka qofka xiiqda qaba uu fiican yahay waxa kale oo muhiim ah qofka dhiikarka qaba hadduu isticmaalo maydhasho ahaan ha u isticmaalo cabitaan ahaan ha u isticmaale dhiikarka wuu dejiyaa waxa kale oo aad iyo aad ugu fiican yahay dadka rheumatism-ka qaba hadday isticmaalaan way ka nafisayaan dadka dhaawaca caloosha qabeed waxaanaynu nidhaahno haddii aan la yidhaha gastrikada qaybta alsarka la yidhaha ee dhaawaca keenta hadduu ruuxu isticmaalo midhaha gobka ama caleenta gobka aad iyo aad bu waxa kaloo iyana muhiim ah dadkan jiimka cayaara ama kubadda cayaara ama howlaha qabta ee muruqyadu ay daalaan gobku aad buu u anfacaa hadday midhihiisa cunaan hadday caleentiisa ismariyaan hadday caleentiisa cabaan muhiim waxa ayana caleentiisa haddii caruurta loo shiday ama dadka aynu nidhaahno gooryaanba caloosha kaga jira samaynaan gooryaanka caloosha aad iyo aad buu u dilaa waa caleenta gobka hareeraheena ka buuxda haddii sharaab looga dhigo ubadkeena gooryaan ku arki maysaan dadka atixaal waxaa la yidhaha beeryarada dadka beeryaradu xanuunayso haddii caleenta gobka loo shiido ama midhaha gobka ay cunaan uu ka raysanaya wuxuu siiyaa jidhka firfircooni iyo awood hor loo geliya haddii qofku ilka xanuun leeyahay caleenta gobka oo la qallajiyey iyo waxaa la isugu tumayaa geedkan ay qaranfulka nidhaahno dhegayara soo ma taqaaniin qaranful iyo caleenta gobkoo la qallajiyey baa la isugu darayaa daankuu gashanaya waa calashanayaa garaaca wuu ka joojinayaa ilkuhu way ka joojinayaan nabarrada haddii caleenta gobka inta la qajiliyo dusha lagaga daadiyo waxay noqonaysaa dhayme ubadka yaryar oo soo koraya ee dhaqso u kici waaya dhaqso u tallaabsan waaya haddii intoo lagu dhoobo caleenteeda lagu duugo oo cabaar lagu yaro qallajiyo muddo ilaa 15 cisho ama 20 cisho wixii la mid ah ilmaha wuxuu yeelanayaa awood uu isku taago oo ku lugeeyo marka laftu jabto waxaa la isugu dari jiray caleenta gobka iyo geedka aynu xabagoda nidhaahno geedka xabagoda la yidhaahdo waa dheecaan buuruha ay soo da'aan af carabigana waxaa lagu yidhaahdaa muumiya ayaa lagu yidhaahdaa muumiya waxa weeyaan waa dheecaankii ay masaaridu dalkeenna ka qaadan jirtay ee ay meydka marin jireen meydka la mariya muumiyaha muddo ma qurmi jirin muumiya ayaa la yidhaahdaa dhulkeennu hodan buu ku yahay buuraha xeebta ku sii jeeda baa da'a waa maxaanku dhaha dheecaan markaad ursato aad moodaysa habeedda geela uun kamaba garanaysa xabagod baa la yidhaahdaa intoo la ridqo ayaa lafta jabtay marka la kabayo ayaa dusha laga mariyaa iyadoo lagu daray caleenta gobka dabadeedna kamaha alla saaraa 7 cisho ku kamayaa ruux hadduu sida kale u caafimaad qabo lafta ay u xidhiidhaysaa haddii la isugu daro caleenta gobka iyo muumiyaha xoolaha cadhooba iyo finanka ka soo baxa wajiyada ha noqdaan findoob iyo wixii la mid ah haddii la mariyo wajiga caleenta maxaan ku idhaa finankaasi way tirtirmayaan oo way baaba'ayaan marka geedkan gobka ahi waa geed karaamo leh oo mucjiso ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ifka inoogu soo saaray mase intifaacsano haddii sixir la sheegana waa ilaahay waa inaga ka soo warranayoo
waxyaalaha lagu dabiibuu ka mid yahay haddii caafimaadkii basharka heli maysid adduunka hal kiniin ah oo 4 cudur ama 5 cudur ka daweynaya 4 cudur ama 5 cudur ama 6 cudur ka daweynaya heli maysid laakiin maanta waxaa budh ah oo inala yaala hal geed oo laga yaabo ilaa iyo 20 dawo inay ku jiraan waa farsamadii ilaahiga ahayd oo wax bini aadmi faragelina aanay ku samaynin marka dhirta ilaahay inagu beeray waliba mantiqadan aynu ku noolahay waa mantiqadaha ugu hodansan dhirta waxaana la yiraahdaa qaacida ah qof kasta dhirta gobolkiisa ka baxda iyo jirkiisu way isleeyihiin geedaha meel kale looga keeno raad aanay ku yeelan karin ayaa dhirta dawaa'iga dalkiisu ay ku yeelataa marka dhirtan in badan oo faa'iido leh baa taala geedka sidriga ah ee gobkina wax allaaliyo wax dhaawacaya dib uu u geysanaya ma jirto waxaanaynu isticmaalay kimikada iyo waxa yiraahdaan cudurka ma daweeyaan laakiin calaamadaha cudurku may qofka ilowsiiyaan cudurka ma daweeyaan laakiin calaamadaha cudurka ayuun bay qariyaan madax baa ku xanuunaya paracetamol baad liqaysaa garaaci unbu maskaxda qaybtii dareemaysay inuu madaxu ku xanuunayo unbu firis garaynaya laakiin sababkii madaxa ku xanuuninaya ma taabanayo lidalik baa waxaad arkaysaa had iyo jeer marka laga hadlayo dhirta iyo faa'iidadeeda shirkadaha dawooyinka soo saara mar walba dagaal bay ku soo qaadaan shirkadaha dawooyinka soo saara raalli kama noqdaan inay bini aadmigu u soo noqdaan dabiicadoodii iyo nolosha ku noolaayeen ee lagama maarmaanka ahayd waxaa laga yaabaa hal ruux inuu u dhimanayo geed agtiisa ku yaal hal ruux inuu u dhimanayo geed agtiisa ku yaal baa suurtagal ah anigoo musaafira halkaasaan ku gabagabayn doonaa oo xeebaha iska lugaynaya ayaa waxaan ku soo baxay nin xero meel loo ooday marka meel yar baa maxaa tuulo yar bay ahayd oo shacbaan kacbo way garanayeen markaas sheekh maxamed oo nin baa naga xanuunsanaya markaasaan ku dhimeeyo way tuseen dabadeedna waxaan arkay inuu qabo jooniskii cagaarshowgi matagbu dabaal joogsanaya waa meel aan de farmasi u dhaweyn oo dhakhtar u dhaweyn oo waxba markaasaan ku yidhi wareedhe geedkii dhuurta la odhan jiray meelahan agtiina miyuu ka dhow yahay markaas halkaas ku yaallaa geedkii baan xididkiisu soo gooyey waan u tuma waan siiyo waxaan ku yidhi waan idin dhaafayaa 2 maalmood baan idinka maqnaanayaa geedkaa u karkariya way u kariyeen markii uu cabbay habeenkii uu seexday uu gamay aroortii dambana caadi buu soo sara fadhiistay 2 maalmood baan ka maqnaa waan soo noqday waxaan war ninkii mee markaas waa ka buurta adhiga ku raacaya marka dhirteenan mucjisooyin badan baa ku jira geed aan anigu u aqaanay in loo isticmaalo qaniiyada maska oo sunta maska inuu dilo ayaa meel cirshiida la yiraahdo dahab u doontay bari waa 96 halkii mid dahabka laga helay baan waaga dahab u doonay waa cirshiida la yiraahdo waa meel gari cidla ah oo hal albaab kaliya leedahay inta kale buur baa ku go'an maalinta aan tagay 5 qof kaliya ku noolaa albaabkeeda nin baa xero looga ooday ninkii baan ku war ninkan waxa ku dhacayo sheekh kanaaca ku dhacday way yiraahdeenoo dawan oo ma hayno deedna geedka soonahda la yiraahdo soonaha baa la yiraahdaa soona waa geed xididkiisa loo isticmaalo qaniiyada maska iyo abeesada iyo meelaha abeesada iyo maska iyo waxa siyaalana uu ka buuxaa soonaha baa la yiraahdaa waxaan ka fakiray war hadduu sunta maska dilayo geedkani sunta kanaacadana uu dili karaa deedna xididkii baan u soo saaray waan u karkariyey wuu cabbay been idiin sheegi maayo 5 daqiiqo ka bacdi dhidid waaweyn baa ka soo booday oo soo sara fadhiistay ninkii markaan geedkaas soonahda u kariyey uu soo sara fadhiistay maalkii dambana waaba nala cunay wixii naloo kariyey marka dhulkeennan markaad saa u marto
وديابيسا غنائم تتعالى أنا عدي هوس ويجينين أنت أسود دو أو سنة هون لقصة دلدلية لقصة دلدلية وحيد هذا كيمي كذو داوين تد البابنا ويكوكو فريسا البابنا ويكاحرس لازم دوّد عاد عنته كيمي كذي هي وحنا ويكو اللوسين مشكلتك لنا ويكوكو فريسا لكن هدي درتنين أقول لعاد كمرتضى هدانو وحبكو تري وحبكو يلميس هداد بريس عنته معه كيليا خمون با وحكو دوينا شمار با وحكو دوينا وخمونات كا إيوه فصائشة يرير عادية هدي أنا وحبكو أنفعين وحيالكو جيسن ميس لكن كيمي كذو dhib badan bay dabada ku wadataa marka baale ma sha Allah u dhugmayeesha qaniimo badan baa dalkeena taala ubadkeenuna inaan taariikhda tagno ayay u baahan yihiin